goordhow xarunta doorashada ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ku soo idlaatay hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyadoona musharaxiinta inta badan khudbadooda ay ku aadaneed waxqabadka ay la iman doonaan haddii ay doortaan golaha wakiilada labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle haddaba khudbadaha musharaxiinta ay jeediyeen ayaa waxay u dhaceen sida tan guddoonka aqoon-yahanada oo maamulka soo galay markaan arkay waxay gashay diido aan isku soo sharaxo in aan noqdo ciddii maamulkaas ka qayb qaadan lahayd oo horkici lahayd laakiin waxaan ku barbaaray oo anaa waxbarashadeeda ka bilaabay magaalo la yiraahdo Shalabood dugsigii barimada iyo sugunta iyo teersadaba waxaan ka baxay dugsiga hoose Shalabood ma dhaafsiisanay markaas galaaska saddexaad waxaa u gudbay magaalada Marka oo galaaska afaraad aan ka bilaabay waxaan ka aadi jiray waxbarashadeeda Shalabood Marka waana ka soo yeeri jiray halkaas waxaan ka qabtay shaqooyin fara badan waxaan joogay muddo 13 sano inta badanna waxaan idin ballan qaadayaa haddii aan la ilmo dadku xoog badanna meel kuma gaaraan xoolo badanna meel kuma gaaraan muwaafaqada meel ugu gaaraaye inaan muwaafaqada aniga iyo ninka madaxweynaha noqon doona haddii aad kalsoonidii siisaan inaan ilaaliyo haddii aan la ilmo si waxaan hogaaminaynaa aan meel u gaarsiino muwaafaqadaas meel ugu gaarsiino waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo barnaamij siyaasadeedkayga sidaad wada og tihiinba haddii aan la helin bulsho heshiisa oo taladeeda organisan tahay lama gaarayo wax guula amnina lagama shaqayn karo sidaas darteed waxaan rabaa inaan istatekan haddii aniga ilaahay ugu guuleeyo laga furo guud ahaan degmooyinkiisa iyo goboladiisa guud ahaan dib u heshiisiin dhaba cid kaste wax kala tabaysana gobol loo dhigo si loo helo xal waara ummadda ku wada noolaato dib u heshiisiintaas waxaa ka shaqayn doono wasaaraddii loo xil saarto iyo maamulkii gobolkaas iyo degmadaas si loo helo tala midaysan ee bulshadu ay leedahay horumarna ma imaan kari haddayna dadku heshiis ahayn oo ayna ceelka isla cabayn oo ayna cagaarka isla daaqayn baadidana ayna kala gooban karin wax horumar oo la gaari kara ma jiro amni lama sugi karo koo waxaa u amni in la helo ummaddu inay tahay ummad is-ogol oo is-dhowrayso oo qof waliba qofta kale ay xaq dhowrayso wanaag iyo wada noolaansho iyo diris wanaagna ay ka dhexeeyaan maalinta Birita ee 11 November ay ku beegan tahay ayaa la filayaa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Wadani warbaahinta qaranka magaalada Jowhar.